wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah taliyihii booliska degmada Dhuusamareeb oo xilkiisa ka casilay diyaarad waa ciidamada AMISOM oo si toos ah u sheegay in Itoobiya ka dambeysay soo riday diyaaradda ku burburtay gobolka Baay hay'adda xasaradaha adduunka oo ka digtay in dagaal ay ka dhacaan Soomaaliya xilliga doorashooyinka qodobada wararka dibadda aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah dalka Ruushka oo ciidamo aad u badan geynaya oo garab siya dagaalooga dalkaasi Liibiya waa 9 bisha May sanadka 2020 daawadayaal intaas waxay qodobadii ugu warka doorana haatan ku soo warkii oo dhan aan ku bilaabanay taliyihii booliska degmada Dhuusamareeb Dhamme Burhaan Axmed ayaa xilka iska casilay kadib markii jijarayd oo xalay ku qabtay degmadaasi taliyahan ayaa waxa uu sheegay in caqabada dhowra oo la soo gudboonaatay uu iska casilay xilka waxa uu intaasi ku daray in gabi ahaanba uu xilkaasi ka tanaasulay waxa uu uga mahad celiyay dawladda federaalka Soomaaliya xilkii uu soo magacawday waxa uu intaasi ku daray Dhamme in uu xilkaasi iskaga casilay qodobo jira awad kuwaas oo ku sheegay in dad la soo xiray ama ay soo qabteen si hoose lagu sii daayay waxa uu sheegay in mas'uuliyadaasi ay tahay mid aan marnaba la aqbali karin waxa uu sidoo kale taliyaha booliska Soomaaliya ugu baqiyay madaxda dawladda Soomaaliya in arrintaas wax ka qabtaan waxa uu sii raayay intaas in la shaqeyn doono qof kasta oo xilkaasi loo soo magacaabo taliyahan xilka iska casilay ayaa waxa bishii February taliyaha booliska Soomaaliya xilka uu soo magacaabay waxa uu ka yimid dhanka Al-Sunna wal Jaamaca maamulkii hore ee ka talin qaybo kamid ah gobolkaasi Galgaduud Afrika waa maamulka waa ciidamada AMISOM ayaa si toos ah maanta warqad ay soo saareen u sheegay in ciidamada Itoobiya ay ka dambeeyeen burburka diyaaradda ku dhacay gobolkaasi Baay war qoraal oo ka soo baxay taliska AMISOM ayaa lagu sheegay in ciidamada AMISOM waa ciidamada Itoobiya ee waliba aan qayb ka ahayn AMISOM ay soo rideen diyaaraddaasi war qoraal oo sidoo kale ku xusna waxa lagu sheegay in burburkaasi nafiya maal wixii halkaasi geystay ay qaadayaan ciidamada Itoobiya ee waliba aan ka tirsanan hawlgalka AMISOM waxayna sheegeen in ay aad uga xun yihiin in ciidamo jooga oo amaanka sugaya inay diyaaraddaasi si qasab ah ku soo ridaan ciidamada Itoobiya ayaa waxa ay Soomaaliya jooga kumanaan ciidamo ka tirsan Itoobiya kuwaas oo aan waliba sida sharci ah aan ku soo gelin kuwaas oo la sheegayo in ay garab siinayaan dawladda Soomaaliya waxaana Itoobiya ay ka jooga marka ay sheegto ciidamo kooban sida ay sheegeen hay'adda xasaradaha adduunka ayaa waxa ay ka digtay in Soomaaliya ay ka dhacaan xilliga doorashooyinka qalalaase hay'adda International Crisis Group oo qoraal soo saartay ayaa waxa ay sheegtay in ay aad uga xun tahay ama ay ka walaacsan tahay in dagaal soo sukaya ka dhacaan Soomaaliya xilliga doorashooyinka oo doorashada oo dib loo dhigo taas oo sheegtay in caabuqa COVID-19 uu ku yeelan karo dib u dhac waa Abukaate Sikriye Yuusuf oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay in Soomaaliya ay ka dhacaan qalalaas siyaasadeed waxa uu sheegay in dhinacyada Soomaaliya ku ah bahwadaagta siyaasadda inay ka heshiiyaan wararka dibadda waxa kamid ah ciidamada wadankaasi Ruushka ayaa waxa la sheegayaa in ay ciidamo badan ku soo daabalayaan wadankaasi Liibiya madaxweynaha wadankaasi Ruushka